siyaasi Cabdilaahi Axmed Maxamed Dahab oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa soo dhaweeyay labadii xubnood ee komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland u matalayay xisbiyada mucaaradka ah ee u ciidiya wadani oo maanta wansixiyay golaha baarlamaanku. siyaasi Cabdilaahi Dahab ayaa sidoo kale bogaadiyay shirgudoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland. Way guusha maanta inoo bilatay in labadii xubnood ay nagu taagnaa ee muranka badan runtii dhaliyay ee qaranka ku kala qaybsanaa inay maanta inoo mareen oo la ansixiyay. waxaan awalan u mahadcelinayaa Ilaahay baan u mahadcelinayaa marka labaad madaxda qaranka ee ka wada shaqeysay sida wada jirka ah uga wada shaqeysay madaxweynaha qaranka gudoomiyaha guurtida Saleeman gudoomiyaha baarlamaanka Baashe xubnaha ansixiyay ee baarlamaanka intaba waxaan leeyahay wadadii wanaagsaneed tubtii aynu rabnay baad ku soo dabaashan dalka waana ku mahadsantihiin shaqo wanaagsan oo runtii midho dhalana waa qabateen aad iyo aad ugu mahadsantihiin. waxaan kaloo isagana aan tashiicinayaa oo aan dhiiri gelinayaa halgankii dheeraa oo ku jiray gudoomiyaha Riyaar Raac saaxiibkay waxaan leeyahay gudoomiye xubnahaaga waa ku dhameystiran yihiin maanta kalsoonidaada waa 100% adigana waan kaaga mahadcelinaynaa sidii gaabnayd aad u dhaweyd aad uga shaqeynaysay maartay faraha aad uga shaqeynaysay aad baan kaaga mahadcelinaynaa gudoomiye shaqo wanaagsan baan ku rajaynaynaa insha Allah. geesta kale siyaasi Cabdilaahi Axmed Maxamed Dahab waxa uu ka hadlay labada telefishan ee Star iyo Universal oo xukuumadda Soomaaliland albaabada u laabtay waxaana xukuumadda Soomaaliland u soo jeediyay inay ilaaliso xuquuqda hadalka iyo madaxbannaanida saxaafadda oo dastuurku jideeyay. sidoo kale waxa uu sheegay inuu aad u la yaabay hadal ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland maruu ka hadlayay xadhigga telefishanadaas. waxa dhacay oo ogtihiin in shalay Universal la xiray daraadna waxa lagu yiri Star baa la xiray. dhaqanka noocaasi ma aha dhaqan inoo cunto ma aha waa dhaqan aan fiicnayn walibana gartii xalay markaan wasiirka maqlay warfaafinta aad baan ula yaabay khudbadii madaxweynuhu soo dayn waayo sidaasan u xadhimnay nooma qalanto qarankan uma qalanto dadka uma qalanto inagoo dhan uma qalanto sharaf maaha milga maaha wixii aynu wadnay maaha waxyaalaha uu qarankan ku taagan yahay waxa kamid ah ganacsiga xorta ah iyo codka xorta ah mid iyadu waan ka soo horjeedaa laba extreme oo Soomaaliland isticmaasho oo inta badan dadkeenu u badan yihiin iyada mar walba waanu caybeynaa waxa weeye mid 100% gool wadeen ah iyo mid 100% ceebeen ah waxaad arkaysaa nin madaxa oo gool wadeentii ugu dambeysay lagu raacsan yahay loo daba taagan yahay waa dhaqan xun inagu waxyaalaha ku faano ee inu gees kaga duwanahay oo Afrika kaga duwanahay saxaafadda xorta kamid ah dhaqanka caburinta ee saxaafadda la iska xirayo ee leeyahay waanu ka xidhnay waanu ka qaadnay ruqsadii waanu waxaas waa khalad wax la aqbalaya maaha aqliga saliimkan aqbali maayo wax aanu yeelanayna maaha marka waxaan leenahay xorriyadoodina loo soo celiyo wada loo maraa warbaahinta marka la ashkateeniyo waa sida dadka caadiga ah sharci iyo shuruuc bay leeyihiin ha loo maro khudbad bay sii deeyaan waa private hadduu doon ma sii deynayba maada la meesha waxaas aqli maaha waa dastuuri waa sax laakiin isaga dastuuri gaar kuma aha oo waajib gaar ma saarna isaga aaladiisa iska leh marka waxyaalaha private-ka iyo waxyaalaha public ah la kala saaro waxa weeye wixii dawladdu leedahay bay dawladdu xukuumaddu ku qasbantahay oo dastuuri ku qasban yahay laakiin ninka dukaanka haysta dad tiraado khudbadda dastuuriga way adigu soo daa adeerday kuma qasbi karaysid waxaan leeyahay TV-yada iyo dhalinyarada dadaalaya codkoodina loo soo celiyo xaalna hal siiyo gaar looguma laha waxaan maqleyno hadaa wax kale ku haysataan ummadda u sheega Liibaan Usman Ali Television Karial Hargeysa.